adduunka dhan dadka madaxda ah maadaama social media uu sahlanaaday ama TikTok ay kala hadlayaan ama Instagram ay kala hadlayaan ama YouTube ay kala hadlayaan marka YouTuberka Soomaalida waxay u fahmeen dadkan qaaqlayaasha oo qayliyo oo buuqkili u haysan maaha Soomaalida u haysato siyaasiga ah waa inuu dadkiisa marna u adeego wax u qabto marna uu la hadlo oo wacyi geliyo runtii aniga waxa aad iiga nixiyay xaaladda oo ku sugan yahay ama ay ku sugan tahay warbaahinta Soomaalida haday tahay midii hore ee jiri jirtay taqliidiga ahayd ee telefishinka oo kale oo kamid yahay telefishinadii waxaas laakiin hadda waxa xoog badan midda social media waxaan fiiriyay dadka ka ah actorska oo ra'yi caamka dadka jiheey alan dadka waxa jira ra'yi caam wax la yiraahdo jiro dadka marka media leh warbaahinta ama midda taqliidiga ah traditionka ama midda socialka ahaato midda haddana waxaan sheegnay socialka xoog badan dadka marka ra'yi caamka wajaha oo celebritiska media ah warbaahinta oo dadku ay warka ka dhageystaan oo habeenkii ama subaxii inta la galo ama YouTube ha ahaado ama Facebook ha ahaado ama live ha ugu jiro ama Twitter ha ku jiro way calool xumeys dadkaas marka arkay runtii oo dad badan oo malaayiin Soomaali ah laga yaabo inay macluumaad qalad ama wacyigelin qalad ama wax oo qabiil iyo colaad iyo fidno iyo waxyaalo akhlaaqda xataa ka baxsan ka dhex socda marka arkay ayna yartahay inta saameynta oo ra'yi caamka oo positive kale ayaa waxa ay war meeshan intii dadkan ay ku ciyaari lahaayeen wacigooda ama macluumaad qaldan ama aragti qaldan ay ka sii lahaayeen dawladnimadii waxaas in aad adigu kaalintan inaad buuxiso maadaama wixiina ay adduunkii la sahlo hadda citizen media loo bixiyay warbaahinta hadda social media qofkii ina kamaradaada adiga hadasho kaliya waa waxa kaaga xiran wax sophisticated oo badan ma laha marka dad badan runtii aad u soo amaaneen barnaamijka oo aad uga helaan waana wadi doona dadka kale siyaasiyiinta ama dadka kale xataa siyaasiyiinta in ahlu fikirka ah ee wax garadka ahne waxaan kula talinayaa inay masaaxadaas qoladaas ay qabsatay la buuxiyo adduunka kama dhacdo keenano in qof la leeyahay celebrity waaye oo social media ku ahaado ama qof media waa la leeyahay oo laga yaabo inuu 1 milyan iyo 500,000 iyo 600,000 followers oo qabo oo haddana page-kiisa kaliya oo jiro oo asaga uusan jirin asagii ma jiro maxaan ka wadaa adduunka kale dadka oo media personalka oo la yaqaano waa dad la yaqaano oo muxaadaro jeediya oo jaamacado wax ka dhiga oo doodaha waaweyn adduunka qayb gala oo loo soo istaago oo wax la weydiiyo la ixtiraamo la yiraahdo awada journalist hebel arintan falaqeynaa article journal ku qora oo qoraya articles laakiin Soomaaliya qof waxa arkaysa lagu leeyahay qofka media waay 1 milyan oo qof raacsan laakiin ixtiraami qadarin loo hay asaga malaha meel laga wacana malaha hadal oo jeedina malaha maqaal oo qoraayo malaha talk oo jeedinayo malaha analysis oo sameeynayo dhageysanayo malaha adduunka saas ma media uma shaqeeyo dadka media adduunka shaqeeyo dad la yaqaan waaye oo magacyo leh oo loo soo istaagayo oo siyaasiyiinta ka xoog badan ka awood badan laakiin kuwan maxay awood ku yeesheen aflagaado ay hebelan ku dhaganahay macnii marka qaarkood waxa isla isbaarooyinkii jidadka yaala waxa loo soo raray warbaahinta loo soo raray hadda waxay siinay waxaan ka sheega waa ku caynaya wasaaradda ama shaqada been ka sheegaya madaxweynaha wax ka sheegaya ra'iisul wasaaraha ku dhaganahay intaan ka dhacay wixii wax iska noqdeen wax akhlaaq darro ah marka taas u baahan runtii in lala dagaalo oo lagu hor yimaado waxa ugu bixina taas aan kula kaftame odayga waxa isleeyahay markuu rabo inuu siyaasadda ka baxo wuxuu rabaa inuu xusiibto YouTube si arrimahaas wax ugu bedelo inuu xusiibto yani YouTube horta Soomaaliya horta siyaasiyiinta adduunka horta YouTuber waaye oo aniga waxaan aad ugu taxanahay YouTube-ka ra'iisul wasaaraha maadaama dalkaas aan aad u joogi jiray Ingiriiska oo in muddo ahna joogay siyaasadoodan aad u xiiseeyo oo siyaasadda adduunka ugu dynamicsan waaye Prime Minister keeda Rishi Sunak YouTube-kiisa ku taxanahay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka YouTube-kiisa ku taxanahay Instagram-ka madaxweynaha Mareykanka ku taxanahay intaasoo dad oo siyaasiyiin adduunka madaxweynaha Faransiiska sidoo kale Instagram-kiisa ku taxanahay adduunka dhan dadka madaxda ah maadaama social media uu sahlanaaday ama TikTok ay kala hadlayaan ama Instagram ay kala hadlayaan ama YouTube ay kala hadlayaan marka YouTuberka Soomaalida waxay u fahmeen dadkan qaaqlayaasha oo qayliyo oo buuqkili u haysan maaha Soomaalida u haysato adduunka YouTube-ka waa normal isticmaalo jaamacadaha isticmaalo muxaadaro dadka waaweyn ee mufakkiriinta buugaagta qoraa isticmaala oo aniga hadda markii hadda asaas la ii fiiriyo waa aragtay social media qof walba meel aad u jecel yahay aniga meesha waqtiga badan geli waa YouTube-ka
sababtoo ah waxaan ka dhageystaa documentariyada, waxaan ka dhageystaa lectureska ama muxaadaraad dadka weyn ay jeediyaan ama geopoliticska ama siyaasadda ama economy adduunka la xiriira. jaamacadaha adduunka oo dhan dhex degan oo ka dhex furan, madaxda adduunka oo dhan ka hadasha. marka youtube-ka Soomaalidu waxay ka dhigeen wax oo dhowr qaaqlayaal ay youtuber isku bixiyeen oo ay wax hooseeya ay ka dhigeen. waxaan waa aalad sida telefishinkan iyo uu yahay aalad ayadana waa aalad la isticmaalo. marka haddaan siyaasad ku jiro iyo haddaan ka bixin haddaan joogaba waa wax oo available inaan isticmaalo. wax wadays ma og tahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 faybar keebalkaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetka. shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. garaac 181 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba.